dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaalka u dhaxeeya ahlu sunna iyo ciidamada Galmudug kaasi oo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Cali ayaa ku baaqay in dagaalkaasi la joojiyo isla markaana wax walba lagu dhameeyo isfahan iyo wada hadal. Gudoomiye ku-xigeenka warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay ka maamul ahaan soo jeedinayaan in dhinacyada dagaalku ka dhaxeeyo ay joojiyaan isla markaana miiska wada hadalka isugu yimaadaan. bismillaahi raxmaani raxiim. horta waxaan ka jeedinayaa dhibaatada meeshaas ka dhacday Bohol oo dadka walaalaha kala gaartay in la joojiyo oo si degdeg ah lagu joojiyo oo wixii hore u dhacay wax ka daba aysan dhicin. arintaas arin lagu degdegay oo la iska wareysan oo la iska daba imaanayahay waa lagu fududaaday. xabadda shalay meeshaas ka dhacday oo la isku adeegsadana ma ahayn xabaddii xaqa la isku adeegsaday ma ahayn. xabadan loo fiirsan lagana tashan bay ahayd. marka dadkaas walaalaha ah oo isku cadowga ah oo mataqaana ayagii cadow la iskaga dhigay waxaan leeyahay arintaas si degdeg ah loo joojiyo. labada dhinacba waa la hadlayaa, hadday noqoto madaxweyne qoorqoor iyo hadday noqoto Sheekh Shaakir, labadaba waxaan leeyahay arintaasu ma habboona, mid leedika filayana ma ahan, mid leedika sugayana ma ahan. marka arintaasi degdeg u joojiyo, wax dabanayaysan dhicin. wixii saacadahaas ka dambeeyana wada hadal hal isku yimaado. dadkii walaalsanay waaye waa dad isku cadaba, waa dadkii mataqaana garabka isku qabanaya waaye, waana ogsoonahay. marka arintaas waxaan leeyahay si degdeg ah loo joojiyo, arintaas degdeg ah loo joojiyaan leh. ka Hirshabelle ahaan aniga waxaan ku hadlayaa afka Hirshabelle waaye. waxaan ka mid ahay maamulka Hirshabelle degmada Matabaan. marka waxaan ku hadlaano hadda waa afka mataqaana Hirshabelle waaye. marka waxaan ugu baaqaynaa arintaas inay joojiyaan, si degdeg ah ay ku joojiyaan, si walaalnimana ay isku soo noqdaan, si kalsooni ay isku soo noqdaan. meeshaasna arinta ka dhacday waxaan u arkaynaa arin qalad ah. Xamdi Gaal Xasan, VOS TV, Muqdisho.